بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu ku wada jirnaa casharadeenii ay imtixaanaha aynu ku baranaynay xirfadda graphic design ahaan barnaamijka Photoshop cashirkeenii hore waxaynu ku soo baranay qaabka loo abuuro document ama project cusub insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo cashirkeenan maantana waxaan ku baran doonaa qaabka loo soo furo document ama project horey u jiray oo horey u samaysatay si aad wax ka bedel ugu samayso ama aad wax ugu soo darto marka dhowr qaab oo kala duwan baan arki doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo oo aad project ama document horey kuugu jiray aad u soo furan karto marka qaabka koowaad oo aynu arki doono shaashadan hore ee marka inoo soo baxdo barnaamijka oo recentska iyo waxyaabihii dhawaanahan aan samaynay ay nooga soo muuqan doonaan waxaynu samayn doonaa halkan waxaad uga jeedaa inay kugu qoran tahay new file iyo open new file cashirkeenii hore ayaynu kusoo baranay waxay ahayd marka document cusub la abuurayo laakiinse maanta waxaan rabnaa open oo mid hore u jiray inaan soo furnaan rabnaa marka halkaasaad ku dhufan doontaa open markaad ku dhufato wuxuu ku geyn doonaa computerkaaga meeshuu wax kuugu jiray aad markaa kasoo dooran rabtid ayuu ku geyn doonaa tusaale kale hadda kan haddaynu soo dooranno wuxuu inoo iman doonaa shaashadeenii wax ka bedel iyo waxna waan kusoo dari karnaa wax ka bedelna waan ku samayn karnaa marka qaabkaasi waa qaabka koowaad oo project ama document horey noogu jiray aynu usoo furan karno inaynu aadno open oo shaashada hore recentska inooga soo muuqan doona kadib aynu kasoo doorno halkaas wixii aan u baahnayn qaabka labaad oo aynu usoo furan karno document ama project horey noogu jiray oo aan u baahannahay inaan wax ka bedel ku samayno waa inaan file aadno kadib aynu halkaas ka dooranno open isla sidii oo kale wuxuu ina geyn doonaa computerkeena meeshii ama laptopkeena meeshii uu wax ku jiray buu ina geyn doonaa marka qaabkaasina waa qaabka labaad usoo furi karto barnaamij horey kuugu sii abuurnaa oo aad u baahan tahay inaad wax ka bedel ku samayso qaabka saddexaad aynu samaynayno waa drag and drop macnaha waxaynu kusoo dul jiidaynaa intaynu halkan aadna shaashadeenii ayaa waxaynu kusoo dul jiidaynaa barnaamijka tusaale kale haddii aan u baahana inaan sawirkan hadda soo furto documentigan waan saa usoo jiido kadib waxaan ku dul furi doonaa marka qaabkan drag and dropka laftigiisa inaad ka fiirsato isku day hadda waan wataa oo mousekayga left click ayaan hayaa kadib haddaan halkan kusii duldaayo projectigan kan ii furan buu ku dul furmi doonaa laakiinse waxaan u baahanahay halkaas qaybahaas saynu soo baranay tabs bay ahayn inuu tab cusub iigu furmaan rabaa marka halkaa kore ayaad kusii dayn doontaa halkan haddaad kusii daysa laakiin kanuu ku dul furmi doonaa marka halkaas tabska haddaynu kusii dayno isagaa mid cusub abuuran doona marka qaabkaas oo kale oo soo furitaanka drag and dropka isaga inaad ka taxadirto isku day markaad sii daynayso inaadan kusii dhex daynin kan oo kale qaabkaasna waa drag and drop oo aynu shaashadeena intaynu aadno aynu soo jiidi karno tusaale kale haddaan kan sii daayo sida hadda aan idiin sheegay oo kale haddaan halkan kusii dul daayo waxaan u baahnaa inaan soo furto tab cusub ku furto laakiin haddaan halkan kusii dhex daayo meeshan buu ku dhex furmayaa midkaasina marka meeshan buu ku dhex furmayaa isaguna waa ujeedaa marka qaabkaas inaad ka taxadarto isku day drag and dropka markaad samayn rabto inaad halkaa kore tabska aad kusii dayso qaabka kale oo aynu usoo furi karnaa waxaa weeye place oo document hore noogu jiray place aynu usoo furan karno tusaale kale qaabkaas marka isagu waxaad inaad maskaxda ku haysaa laga rabaa qaabka placeka markaad isticmaalayso waa documentigan hadda projectigan kuu furan ayuu ku dul furi doonaa isagu tab cusub ma qaadan doono meel keligii gooni uma istaagi doono projectigan kuu furan ayuu ku dul furmi doonaa marka qaabkaas placekaasi aan u samayno tusaale kale logadeedan oo kale markaan halkan aan keenayo qaab place aan ku keenayo halkan aan ku dul keenayo laakiin haddaan open caadi aan idhaahdo halkaasuu aadaya tabska oo isaga meel goonidiisa u furanaya u istaagaya marka qaabkaasoo kale si aan u samayno waxaynu tegi doonaa file kadib file waxaan kasii dooran doonaa place embedded markaan kasii dul tagno qaabkaas waa soo furasho oo documenti hore kuugu jiray oo openkii laptopkaagii buu geenayaa meeshii aad wax kasoo dooran lahayd laakiinse maskaxda ku haysa meel gooni a istaagi maayo halkan buu kuugu dul furmi doonaa marka waa inaad qaabkaasna aad sidaa u fahamsan tahay marka uu kuu soo furmi doonaa tusaale kale haddaan isla loogadeedii soo furto hadda oo aan place idhaahdo kadib halkan buu ku dul furmi doonaa waa ujeedaa meeshan bay loogadii ay isku dul furtay kale oo project ama document hore inoogu jiray aynu usoo furan karnaay waa markaynu joogno recentska iyo waxyaabihii dhawaanahan samaynay inooga soo muuqanayaan inaynu loogada Photoshop ku qoran tahay inaynu double click siino haddaynu halkaa ku dhufano waxaa inoo soo furmi doona canvaskii ama workspacekii oo bannaan marka qaabkani waa qaab soo furasho oo wax cusub aad soo furaysid laakiinse halkan qaab hal mar buu shaqeeyaa keliya waa marka oo ay wax taabisi aysan furnayn haddii tab uu ku furan yahay halkan maba banaanaanaysa oo canvasku waad ujeeda waa meeshii wax kusoo furmayay laakiinse marka ay sidan u bannaan tahay oo kale qaabka aan u aadnay laftigiisa aan kusoo celiya hal mar
qaabka aan u aadnay halkaas si aad qaabka laftigiisa u fahamsanaato waa halkaas ay loogada ku qoran tahay baad click ku siin kadib waxaa kuusoo furmi doona canvaskii oo bannaan kadib canvaskan bannaan baad double click ku siin isaguna sidoo kale wuxuu kuu samayn doonaa in aad wax soo doorato oo aad soo furato ayuu ku awoodsiin doonaa marka kadib aynu kan soo doorano marka wakaas isagana qaabkaasna wax document baynu usoo furi karnaa ama project hore inoogu jiray laakiinse ogsoonow hal mar keli uu shaqeeyaa baan dhahnay waa marka wax taabaysi hadda uu furan haddii hadda iminka aan isticmaalo isku dayo inaan double click siiyo waxa iisoo furmaya ma jiraan sababtu waxay tahay already canvaskii waxbaa ii yaalla oo document baa iigu furan marka qaabka kale oo aynu samayn karnaay waxa weeye aynu document ama project hore inoogu jiray aynu usoo furan karnaay inaynu control plus o dhahno shortcut baynu isticmaalaynaa waa inagii cashirkeennii horena kusoo sheegnay mar walba shortcuts aad bay muhiim u yihiin waayo sababtu waxay tahay waqtigii aad ku bixin lahayd shaygan samayntiisa ayay kuusoo koobayaan marka shortcutka marka documenti ama project hore u jiray aad soo furanaysayna waa isaguna inaad dhahdo control plus o inaad doorato control plus o haddaad sidoo kale doorato iyadana halkii buu ku geyn doonaa oo waxaad kasoo dooranaysay aad soo furaysay marka qaabkaasina isagu waa qaab kale oo aad usoo furi karto project ama document horey kuugu jiray marka dhowrkaa qaab oo halkan tusaale kale haddaynu file aadno oo openka halkaynu ka dhahaynay qaybahan open as iyo open as smart iyo open recent iyo waa isku midka un dhammaantood hal qayb umaan ka qaadanaya open taasa taasun baa ugu muhiimsan open recentskoo kale hadda tusaale waa dhawaanahan waxyaabihii aad samaysay haddaad rabto inaad soo furto iyada halkan iyadana ka dooran doontaa marka dhowrkaa qaab baynu usoo furi karnaa document ama project aynu horey u abuuranay marka qaabka koowaad wuxuu ahaa inaynu halkan shaashadan recentska markaan joogno inaynu halkan open ku dhufano kadib uu ina geeyo meeshii laptopkeena aynu wax kasoo dooranayna marka qaabka kale waa inaynu file aadno kadib open aynu dhahno aan halkaa kasii doorano iyadana qaabka kale aynu soo sheegno waa inaan isticmaalno drag and drop macnaha computerkeena ayaynu meel kamida aadaynaa meeshuu wax inoogu jiro kadib waxaynu soo jiidaynaa markaas shaygii aan u baahnayn inaan samayno qaabkan waa inaga soo sheegnay inaad ka taxadarta isku day markaad drag and drop samaynayso inaad halkan kusii duldayso taab cusub haddaad u baahan tahay halkaa koragee halkaas kusii daa marka si uu taab cusub uu kuugu qaato qaabkaasina waa qaab kale oo aynu wax ugu soo gelin karno oo drag and drop inaan samayno qaabka kale marka aynu samayn karnaa si aynu wax usoo gelinayn soo sheegnay waxaa weeye place inaad samayso qaabkan placeka waa inaga soo sheegnay waa isagu hal mar bes isaguna sidoo kale shaqeeya waa marka documentiga aad hal mar uu kuu furan yahay hadduusan sidoo kale uu meeshii canvasku bannaan yahay placekaas isagu ma shaqaynayo tusaaloo kale si aad ila fahanto haddaan halkan iska tiro kuwan oo dhan haddaan iska tiro oo halkii aadno canvaskii bannaanaa oo tusaaloo kale aan file tagno kadib aynu place dhahno place waa ujeedaa inay xidhan tahay sababtu waxay tahay hal mar bes uu shaqeeyaa markan placeku isagu waa marka uu canvaska wax kusoo furan yahay markaas ayaad place samayn kartaa tusaaloo kale hadda uu inoo soo furmi haddaynu ku laabano oon file tagno kadib aynu dhahno place waa ujeedaa inuu inoo soo furan yahay placekaasina marka waa qaab document ama project horey kuugu jiray aad usoo furi kartid laakiinse lagaa raba inaad ogsoon tahay inuu halkan kuugu dul furi doono oo uusan taab cusub uusan qaadan doonin isagu tusaaloo kale haddaan kan kusoo dulfuro waa ujeedaa meeshan buu ku dul furmi doonaa kii taab hadda halkuu ka qaadan lahaa taab ma qaadanayo halkan uu laakiinse isku soo furi doonaa marka qaabkaasina waa qaab kale oo aynu usoo furi karno document ama project cusub isaga qaab kalenu hadda arkayno waxaa weye qaabkii marka canvasku sidan oo kale inoogu bannaanaa inaynu double click siino iyadana sidoo kale waxaynu dhahnay waa qaab kale oo ah wax kusoo gelin kartid ama document horey kuugu jiray aad usoo furan karta mar kale qaabka u dambeeya oo shortcuts ah oo aynu isticmaalayno wuxuu ahaa control plus o oo haddaad control plus o da halkan aad uga jeedaa openta horteeda waxaa ku qoran control plus o oo shortcutka la isticmaalayo marka document ama project hore u jiray aad soo furanayso marka qaabkaasina waa qaab kale oo aynu isticmaali karno marka aynu document horey ama project horey aynu u abuuranay aynu usoo furanayno marka dhowrkaa qaab baad usoo furan kartaa document aad abuuratay halkaas aynu ku arkeenana cashirkeenan maanta inaad ka faa'iideen baan rajeynayaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk